adduunka waxaa ka jira sharciyo qariib ah oo kaa yaabinayo oo laga yaabo inaadan rumaysan inay jiraan sharciyadaas. qaar ka mid ah sharciyadaas ayaa soo taxnaa qarniyo badan, halka kuwa kalena la abuuray dhowaan. balse waxaa xaqiiq ah ma doonaysid marka aad safarto inaad dhibaato kala kulanto mid ka mid ah sharciyadaas yaabka leh. magacaygu waa Jaabir Cusmaan JB, halkan waa madashiina xikmadso. halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa sharciyada ugu yaabka badan adduunka oo weli ka shaqaynaya caalamka oo dhan. tobanka sharci ugu dambeeyo aad ula yaabi doontaa heer aad gaarto inaad qosasho. nala sii joog ilaa dhammaadka muuqaalka. ku soo dhowow mawduuceena maanta. sharciga koowaad, waddanka Singapore waxaa mamnuuc ka ah xanjada. Singapore waa dal soo jiidasho leh. waxaa sharci daro ah in dalkaas gudihiisa xitaa xanjo aad ku iibiso. haddii lagugu qabto xanjo, ciqaabtaada waxay noqonaysaa 100,000 oo ganaax ah iyo 2 sano iyo 6 bilood oo xarig ah. haddii aad mar un tagto Singapore, waxaa laga maarmaan ah inaad hubiso iska eegto liiska buuxa sharciyada, maadaama ay jiraan waxyaabo badan la yaab leh oo ku sugaya. sharciga labaad, ka tilaabsiga lacagta Thai waa faldambiyeed. haddii aad tagto Thailand, lacagta ay isticmaalaan dalkaas Thailand waa faldambiyeed. waxaa laga yaabaa inaad la kulanto dacwad weyn sababtoo ah lacagta Thai waxaa ku sawiran boqorka Thailand oo ay aad u ixtiraamaan dadka halkaas jooga. sharciga saddexaad, quudinta xamaamyada ayaa laga ogolaan Venice. Venice waxa ay ku taalaa Talyaaniga, waa meel ka mid ah meelaha ugu caansan adduunka. waa magaalo qurux badan oo ay ku buuxaan taariikh iyo dhaqan. si kasta ha ahaatee, mid ka mid ah sharciyada halkaas ayaa ah inay sharci daro tahay in la quudiyo xamaamyada waddooyinka Venice sababtoo ah qashinkooda wuxuu wasakheeyaa dhismayaasha iyo dharka dadka sidaas sameeya. sharciga afaraad, waa mamnuuc gudaha Thailand inaad gaari shaati la'aan kaxayso. dalka Thailand waa sharci daro in lagu kaxeeyo gaari bilaa shar adigoo ah. mamnuucidda si adag ayaa loo dhaqangeliyey. ma ahan oo keliya in tan loo arko ixtiraam daro, waxay kaloo keeni kartaa ganaax haddii lagu qabto. marka xitaa haddii aad ku dareemayso kuleel iyo raaxo la'aan gudaha Thailand, waxaa fiican inaad shaarkaaga xirato. sharciga shanaad, gobolka Georgia waa mamnuuc digaaga waddada inuu jaro. haddii aad ku sugan tahay Kuwatman, Georgia, waxaa lagaa rabaa haddii aad digaag haysato, dooradaada inaad gacanta ku haysato. waa sharci daro in digaagaaga jidka ka gudbaan. sharcigan wuxuu ka mid yahay taariikhda Kuwatman oo ah magaalo tartan digaaga. sharciga lixaad, go'aaminta magacyada carruurta ee Denmark. Denmark haddii aad qorshaynayso inaad magac u doorato ilmahaaga dhashay, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto sharci aan caadi ahayn oo xadidaya magacyada. dowladda waxay ugu baahan tahay waalidka inay magac u doortaan ilmahooda liiska magacyada la ansixiyey, taasoo ka dhigaysa xeerkan mid ka mid ah sharciyada ugu yaabka badan ee la xiriira magacaabista carruurta adduunka oo dhan. liiska rasmiga waxaa ku jira ilaa 7,000 oo magacyo ah oo ay isugu jiraan magacyada ragga iyo magacyada dumarka. sharciga toddobaad, ha ka qasin xayawaanka hurdadooda Alaska. gobolka Alaska ee dalka Mareykanka oo ay ku nool yihiin boqolaal nooc xayawaano durjoog ah, waxaa mamnuuc ah bahalka la yiraahdo orso oo loo yaqaano biir in aan hurdada ka qasin haddii aad rabtid xitaa inaad isku sabirto. sharcigan wuxuu ka turjumayaa sida ay ugu go'an tahay dowladda ilaalinta dheelitirnaanta dadka iyo duurjoogta. sharciga sideedaad, aadida musqusha habeenkii. markaad joogto Switzerland, ka fikir wax yar ka hor inta aadan cunin shay kugu qasbaya inaad isticmaasho suuliga habeenkii, sababtoo ah Switzerland wuxuu mamnuucayaa isticmaalka suuliga waxa ka dambeeyo 10 habeenimo. tani waa sababtoo ah sharciga Swiss wuxuu u arkaa sanqadha suuliga 10 habeenimo kadib nooc wasaq ah. sharciga sagaalaad, dalka Koonfur Afrika, naagta waxay weydiisan kartaa maxkamadda inay ogaato goobta ninkeeda ku sugan yahay wakhti kasta iyadoo saaraysa qalabka raadraaca lugtiisa. sharciga 10aad, dalka Bangladesh, ardayga 15 jir ah oo imtixaanka qasha waa la xirayaa. sharciga 11aad, waqooyiga Kuuriya, haddii aad gaarto 27 sano jir oo aanad shaqaynin, waxaad isla markiiba aadaysaa ciidanka. sharciga 12aad, dalka Burma waxaa ka mamnuuca kubadda cagta, kubadda koleyga iyo shaneemada. sharciga 13aad, dalka Colombia, oohinta meel fagaara ah waa mamnuuc. sharciga 14aad, waqooyiga Kuuriya waa inaad fasax weydiisataa wasaaradda arrimaha gudaha haddii aad rabto timahaaga inaad midabayso. sharciga 15aad, Samow waa sharci daro inaad ilowdo dhalashada xaaskaaga. sharciga 16aad, dalka Jabaan, miisaanka cayilka xad-dhaafka ah waa dembi uu mutaysan karo qofka sharci. sharciga 17aad, dalka Venezuela waa lagu xiri karaa haddii aad u dhoola cadayso haweeney aadan aqoonin. sharciga 18aad, dalka Hindiya ma dili kartid dooli adigoon ogolaansho weydiisan dowladda. sharciga 19aad, waqooyiga Kuuriya waxaa mamnuuc ka ah isticmaalka internetka iyadoo fasax laga helin dhammaan wasaaradaha. sharciga ugu dambeeya, sharciga 20aad, dalka Griiga waxaa ka mamnuuc ah in la cabo wax dareere ah marka aad gaari wado, xitaa hadday yihiin biyo caadi. fiiro gaar ah dadkayga ku xiran xikmadso, haddii aad ku fikirayso safar, waxaa habboon oona wanaagsan inaad cilmi baaris samaysid, xogna ka og tahay meesha aad u socotid, caadooyinka iyo sharciyada meesha aad u socoto si aadan ula kulmin wax dhibaato ah, maadaama kala duwanaanshaha
uu noqon karo waxyaabo aan caadi ahayn oo dabiici ah oo ay jiraan waxyaabo dabiici ah oo aan la filaynin marka mar walba taxadarkaaga muuji ugu dambeyn daawade sharcigee kula yaab badnaa dhankaaga fikirkaaga qaybta faalada commentiga nagu reeb haddii aad ka heshay muuqaalkan like sar si aan u dareenno inaad ka hesheen muuqaalka sidoo kale la wadaag asxaabtaada jeceshahay sheer dheh intaan muuqaalkan leecinaha ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar